إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaa kadib xisaabta allah inoo fududeeyo waxaynu soo agmarnay cadaabkii muuqaalkiisiina aragnay inagoo ka dheehanayna nusuusta iyo daliilka waayo shaygu marka uu qeyb yahay ama uu maqan yahay meel kale lagama ogaan kara aan ahayn daliilka ah. brofessor khabiiro jaamacad fadhiyana kuuma sheegayo, satellite-kii meelaha ay ku eegayeenna ma soo qabanayo, laakiin dayax gacmeedka ilaahay baynu ka eegaynaa iyo daliilka oo ah waxyigan samaawiga mar hadduu shaygu qeyb yahay. qeybna waxaa la idhaha wixii hore tegey iyo waxa soo socda marka labadaa qur-aanka iyo xadiidka sugan iyo qur-aanka kariimka unbaa laga arki karaya. sidii oo kale waxaa la yidhaahdaa marka wax la bilaabayana inuu bilow fiicanna yeesho dhammaad fiicanna yeesho. marka khitaamuhu miskun, ninkii shaacirkaa wuxuu laha wayanbagii lisaaxibi اlkalaami ta'aluqu fi اlbadni wاlkhitaami wamadlacin xusni wa xusni اlqaali. qofku markuu wax bilaabayo bilow wanaagsan iyo dhammaad wanaagsan. dhammaadkii shirkan ama muxaadaraadkan waxaynu dooranay inuu noqdo ka waramidda iyo aragtida iyo daalacashada iyo dhegaysiga jannada ilaahay inagoo alle ka baryayna tafaa-ul iyo saadaalna uga niyoonayna inuu ilaahay arrinkeenna janno kusoo gebagabeeyo. ilaahay jannaha kusoo gebagabeeyo niyadeennu waa caynkaa weeye. waa wax loo cishqiyo oo loo muraaqoodo oo lagu yididiisho. qofka muslimka ana waxa weeye qof han weyn, hankiisu ma yaro qofka muslimka ah. qofka hanka yari cunada iyo adduunyada iyo alaabteedan iyo bagaashkan uu ku warwareegaa ku waalan yihin. laakiin qofka muuminkaa ma qanciyo ilaahay wax ka sokeeya subxaana wa tacaala iyo jannadiisa. inuu ilaahay jannada kula kulmo iyo rasuulka ilaahay unbaa qancisa. waxaan ka sokeeyo o dhan hankiisu u dhaafsan yahay. waxaynu markaa si deg dega u dulmari doonaa inaynu soo bandhigno sidii kolkii hore oo kale sababaha lagu galo jannada iyo jannada waxa yaalla. haddaynu kolkii hore soo aragnay sababaha lagu galo cadaabka iyo naarta waxa yaalla, halkana imika waxa inoo yaalla sababaha lagu galo jannada iyo macnaha waxyaabaha markaad samaysaad jannada gelaysa iyo jannada maxaa yaalla, maxaa halkaa ku diyaarsane ilaahay awliyadiisu casuumaya ugu diyaariyey. waxa aynu soo xusi doonaa camalada qaarkood waa arkaanul iimaankii iyo arkaanu islaamkii iyo usuushii diintee waa weyneyd. laakiin camalo kale oo aynu fudaysano dadkao dhamina inta badan samayn karo ayaynu arki doonaa inay sababaha jannada yihiin. si kale haddaynu dhigno jannaduba inay sahlan tahaye dadku lagu kari laayay baynu arki doonaa. jannaduba dariiqeedu wuu sahlan yahay, gadaankay saarantay, agtaadaasay taallaa. marka soo qaadashadii dadka ayuunbaa waxaa u diidan kaarhkeeda in lasoo qaatunbuu ibliis diidan yahay. markaad gacanta ku fidiso saasuu kaa odhanaya oo kolba uu kuu diidayaa inaad kaarhkaa qaadato. kow sababaha waxaa kow ka alikhaaru min alacmaali asaalixa, camalada wanaagsan in la badiyo. albaaqiyaat saalixaat buu nasku u bixiyey. waa waxyaabaha hadhaya. camal kasta oo khayr la qowl iyo ficil iyo qalbi, camal kasta oo khayr loo diintu ina fartay in la badiyo. nebigu xadiid waxa uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam saxiixa, qofku haddii uu wejigiisa u dhacu weligii sujuudsanaado ilaa maalintuu dhimanayo, intuu gaboobay gabow dhimanayo, camalkiisa maalinta qiyaama uu xaqiri lahaa. laba arrimood buu xaqiraya. korkuu arko balaayada weyn ee meesha ka dhacaysa aynu ka soo warranay,
wuxuu odhanaya wallaahi camalkani waxba ka tari maayo meesha waxa soo socda ee balaayo ishuwan waxba ka tari maayo wixii yaraad samaysay waxa labaadoo u yaraysanayaa markuu arka deeqda ilaahay iyo nicmada meesha taaltaalle faraha badan ayuu odhanaya camalkaagii yaraa muxuu ka goynayaa in badan ba aad soo sujuudide muxuu ka tarayaa camalkaaga ayuu odhanaya waxyaabaha qofka sabab ugu noqda waxaa ka mid a imhaalu lmucsiri watajaawuzu canh dadka dhiban oo loo fududeeyo deynta yala qofku hadduu faqiir yahay u warwaraya gashina qaato oo deyn lagu leeyahay wuu nugul yahay wuu cabsanaya wuu damqanaya haddaba qofkii deynta ku lahaa hadduu u dabciyo idhahdo bar iska keen ama u idhahdo miyaad weyday waaban kaa saamaxay jannada sababaheedu ka mid yahay lagu galayo xadiid saxiixa oo muslim ku sugan shardigiisa abi hureyra uu nabiga ka soo maqlay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxu uhi nin baa ummadihii hore ka mid ahaa weligiiba khayr muu samayn laakiin inta khayr uu sameeye keliya waxay ahayd dadka marka uu deynta ku yeesho shaqaalihiista deynta soo ururinaya ay u tagaan ee uu qofku idhaahdo waxba ma hayo ayuunbu dha inaga daaya miyuu soo waayey iska dhaafa maalintii qiyaamaha camalkiisii loo miisaamo waa la waayey waxba waa loo waayey waxa uu ihi hal camilta khayran qad qaala la miyaad khayr weligaa samaysa aada la shir timaada maya laakiin waxa uu sheegay dee markaa dadka uu deynta ku leeyahay waayaan inuu ka dhaafi jiray ilaahayna wuxuu ihi ilaahii boqorka baan ahaye isagoo addoonuu dadka ka dhaafi waayey ayuu ka dhaafayay deynta ma anaan ka dhaafay ilaahayna wuu ka dhaafay wixii haddaba ninkii bilaa khayrka ah waxba qabaninba kale marka arrintaasi arrin sahlan ma aha qof nugul oo dabacsan oo deyn ku leedahay inaad u dabciso waxyaabaha inala fudud waxaa ka mid ah sababaha jannada lagu galo jidkan dadku ay marayaan oo laga qaado wixii dhiba imaadatu lada can ariiq inaan weligiiba khayr samayn buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa ayaa waduu marayayo dhirtii geedkii kusoo foororay ee dadka qabsanayay qodaxdiisu ay waxyeelaysa ayuunbuu ka jaray kolkaasuu ilaahay jannada geliyay fashakara allahu lahu biha faadkhalahu ljanna xadiidkaa saxiixa ilaahay baa u mahadnaqay maxaad umalaysa addoon yaroo miskiin oo ilaahay u mahadnaqay ilaahii weynaabaa u mahadnaqay kolkaasuu jannada geliyey waa wixii jannada lagu gelaya waxaynu ka hadlaynaa marka inaad kudaafadii qaadood shaarica ku daadiso maya wataa maanta laynoogu faanayo laleeyahay clinicski waxaa yar haddii aad daska ku daadiso reer magaalnimadaadi waxu dhinmaya inagii baa laynoo faanaya inagii ay ahayd inaynu jannada ku raadsano waxa kudaafada laga qaadayo ayaa maanta la marayaa waxaa la idin barayaa shaarica sida loo nadiifiyo iyo sida loo farxasho waa nasiib daro waxyaabaha jannada lagu galo waxaa ka mid a dikriga ilaahay xuska alleh inaanad ilaahay ilaawin ee ilaahay aada xuskiisa badinayso nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa rasuulkaa wuxuu xusay inuu la kulmay nebi ibraahim habeenkii la dheelmiyey fariin buu inoo soo faray nebi ibraahim wuxuu uhi ummaddii salaan iga gaadhsii waxaanad u sheegtaa arrinta meesha jannada la yidhaahdo markaa ilaahay waa awliyadiisa ku casuumayo ayibatu turba cadbat lmaa wainaha qiicaan qarsuha subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ciidda jannadu waxa weeye mid wanaagsan oo udgoon biyaheedu way macaan yihiin waa meel isku siman oo boholo iyo buuro iyo turunturo toona lahayn waxaa lagu beerayo ee barwaaqadeeda ay ku baxdaana waa dikriga subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar qof waliba u odhan karaa odayga iyo islaanta iyo mid mutacalima mid waliba wardigaa iska kooban wuu akriyi karaa isagoo boqolaal iyo kumayaala dee waad beeraysaa un jannadii waxyaabaha jannada lagu beero waxaa ka mid a istikfaarta astaqfiru llaha waatuubu ilayhi astaqfiru llah astaqfiru llah astaqfiru llah astaqfiru llah astaqfirullahu maaha dadkeenu way khaldaan astaqfirullah waa qalad astaqfiru llah saasaa loogu dhawaaqaya sayid istikfaar nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam istikfaarta waxaa hormuud u ah inaad tidhaahdo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila ant allahuma anta rabbii laa ilaaha ila ant khalaqtanii waana cabduk waana calaa cahdika wawacdika ma staطactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu laka binicmatika calay waabuu bidanbi fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant dikrigaa qofka ku dhawaaqa gelinka hore hadduu dhinto gelinka dambe jannadu gelaya hadduu gelinka dambe ku dhawaaqana gelinka hore jannadu gelaya kolba waktiga uu ku dhawaaqo jannuu ku helaya waa wixii jannada lagu helaya waaba dikrigaa iska koobanba qofku waa xafidi karaa aayat lkursiy nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka akhriya salaad walba markuu ka baxa aayat lkursiy
qofka akhriya lam yamnachu min dukhuuli اljannati ila an yamuut jannada inuu galo waxaba ka hor joogo inuu dhinto waxa isku beegmayo in isagoo ku wardiyey oo salaad ka baxay isagoo naftu ka baxdo jannadu cala tuul u galaya baa lagu leeyahay ismullaahi lacdan baa ku jira shaydaankiina way kaa eriyeysa waxaa ka mid a waxyaabuu nabigu xusay inoo sahlan bee kooban ee jannada lagu galayo ducadan suuqa marka uu galayo qofku inuu akhriyo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa xayun laa yamuut biyadihi alkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir waxaa loo qorayaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam alfa xasana kun oo xasano macnaheedu waxa weye kun lagu dhuftay 1 milyan oo xasanaa loo qoraya 1 milyan oo dembina waa laga dhaafaya 1 milyan oo darajona waa loo dalaacaya waxaynu uga jeednaa waa buniya lahu baytan fi ljanna gurina jannadaa looga sii bineeyey soo maad jeclayn haddii meel aad soo degayso guri goglan oo sallaxan oo guryaha ugu qaalisan ee ugu raaxo badan uu sii diyaarsan yahay gurigaasi haddii aad intaasun ku wardido aada akhriyayso waxyaabaha cajiibka ah ee inoo sahlana jannada wadooyinkeeda waxaa ka mid a su-aalu janna inaynu ilaahay barino jannada ama af carabi ku bari ama af soomaali ku bari luqadda taqaano ku bari ilaahay luqadahoo dhan isagaa ina baray subxaana wa tacaala rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam waa xadiid isna saxiixa albani silsiladiisa uu saxiix kaga dhigay haddii qofku uu 7 jeer yidhaahdo ilaahay uu naartaan kaa magan galay ilaahay uu naartaan kaa magan galay af carabi iyo af soomaali midku doonaya ha ku idhaahdo 7 jeerna yidhaahdo ilaahay jannadaan ku weydiistay naartiiba hadlaysa waxay leedahay ilaahay ow addoonkaa iga kaa magan galay ka badbaadi iga badbaadiyo iga jooji waa loo aqbalay ilaahay ow addoonkaa ikaa weydiistay halkan keen bay leedahay jannaduna ilaahayna subxaana wa tacaala isagaa u fasaxaye wuu ku geynayaa maxay ku yeelaysa 7 jeer inaad ku celiso waxaa ka mid a qowlu laa ilaaha ila allah balaa shahaadadii suuqa yeelatee dad badan baa u haystaa shahaadada in lagu islaamo la joojiyo uun intoo lagu islaamo islaamka lagu soo galo furaheedii uun ay tahay in halkaa la iskaga xidho ashahaadadu waa wardiga ugu qaalisanba wardiga aada baalal ku yeelanaysa ilaahay xaggiisa u duulaysa waa shahaadada markaa intaad kari kartaad badinaysa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna qofka markay naftu ka sii baxayso laa ilaaha ila allah intaa ku dhawaaqaa jannaduu gelayaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed bay habboontay intaynu dadka sii dhimanaya xiijin lahay wali misaal hebel ku lahay hebel maxaad siinaysaa aniga maxaad siinaysaa iyo inaanaan shahaadada seejinin oo aynaan ka xanaajinin mid baaba laga yaabaa inuu ku xanaaqo u ihahdo maanaa dhaxalkayga usoo dhigato sidaa ku shahaado seego marka waxaa muhiima laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah in la badiyo salaadu xusay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka ku dadaalaya salaada ee aan xaqiraynin dayacaynin ilaahay agtiisa cahdi buu dhigtay iyo ballan inuu jannada geliyo hadduu xataa gef ku dhacaba gefba ha ku dhacee ilaahay agtiisa ballan buu dhigtay qofka tukanaya inuu jannada geliyo sidoo kale jannada inuu ku gelayaabuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ku dadaalo 12 ragcadood ee raatibada la yidhahda salaadaha raaca 2 ragcadood oo ka horeeya subaxa 2 ragcadood oo duhurka ka horeeya 2 ragcadood oo ka ama 4 ragcadood duhurka ka horeeya way jiraan labaduba iyo 2 duhur ka dambeeya 2 maqrib ka dambeeya 2 cishaa ka dambeeya marka duhurkii baa wuxuu leeyahay maxay 6 buu leeyahay iyo salaadaha kale oo 6da casarkii markaa kumuu darin nabigu calayhi salaatu wasalaam marka 12 ragcadood hadduu qof ku dadaalo jannadu galayaa buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa tobnaadoo waxyaabaha jannada lagu galayaa man khutima lahu bisiyaami yowmin dakhala aljanna xadiidna saxiixu xudayfa warinayo qofka isagoo sooman khaatumadiisa soomo u dambeeyo maalinka ama sooman ama maalmaha u dambeeye soomayay soonku fadliguu leeyahy jannadu ku galaya infaaqa isaguna la mid ah oo ka 11aada waxbixinta iyo shayga deeqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii magaalada madiine waxaa ku yaalay ceel aada u biyo badan oo bulshadu ay u baahnayd ruuma la odhanay biru ruuma marka ninkii lahaa buu nebigu ku yihi il jannadaa maad ku iibsano ummadda maadsiin dee wax kale aanan haynin buuhi oo inta waan u baahana cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wa ardaahu
ayaa ka iibiyeyoo ninkii lacagtiisii siiyey lacag markaa qaali ahayd ayuu ka bixiyey 35 dirham oo qiimo waqtigaa lahaa laakiin nebigu afka usoo dhuubay oo wuxuu yihi ceelkan isaga ah haddii aan bixiyo ma ku helayaa ishii aada sheegaysee ninkii uu ku heli lahaa ila u adigii yidhi haddaad ceelkan bixiso ishaa jannadaad ku helaysa haa waad ku helaysaa buuli haddaba ilaahay daraaddii baan u waqfay buuli marka in dadkan haraaday ee xiiqee duruuftu ahayse ceelal biyaa loo qodo oo la siiyo wixii la heli karayo iyo sadaqadaa sheekhuba markii dhaweyd idiin sheegayey waxaad u qiimo badan wey noocyadeeda kala duwan biyahana usii fadli badan waxaa 12aad oo wadooyinka jannada ka mid ah alxirsu calaa biri lwaalideyn labada waalid samafalkooda aada loogu dadaalo labada waalid samafalkooda aada loogu dadaalo caaisha waxay tidhi habeen baan ku riyooday inaan jannada galay oo qur-aan la akhriyay un baan maqlay markaasaani waa iyo qofkaa qur-aanka akhriyaya xaarithatu bnu nucmaan ninkii la odhan jiray baa jannada ku jiro qur-aanka akhriyaya baa lihi nebigaan u sheegay markaasuu yihi kadalika albiru samafalka caynkaasa ninkaasi in waalidkiisii u samafali jiray buu ahaayoo samafalkaasuu ku helay aljannatu taxta aqdaami lummahaat jannadu waxay ku jirtaa hooyada cagteeda hoosteeda marka haddaad hooyadaa garhka qabatood maslaxatood u samafasho way kaaga dhaqaaqi haddii kale lugtii aw samiray kaa saari soomaalidu waxay yaqaanaa nin weliyaho dee intuu leegiya tolo waa mid ay sawirteenuune markaa waxay dhahaan waxaa lugtii aw samiraa la saaray aw samiru xagguu jooga adi khiyaaliya iska sheegayaan marka si aanay lugtaa aw samiro kaaga saarin islaanta ku hooye ah iyo aabbaba in loo samafalo oo loo ixsaan sameeyo oo jannada lagu raadiyo xusnu tarbiyati lbanaat iyaba waa cajiib hablaha wiilashana ma sheegin laakiin waa hablaha wiilashana waa lagu helaya laakiin si gaara nebigu wuxuu calaamadiyey hablaha uu qofku dhalay ama ay walaalaha yihiin ama mas-uulka uu ka yahay in loo samafalo waxaa lagu helaa janno suuqan aynu raadinayna jannaduba wuxuu ku jiraa hablahan dadku ay necab yihiin maaragtay ay yidhaahdaan qofka maxaa markuu gabadha wax dhasho maxay dhashay asaa la leeyahay inan dana wuxuu leeyahay walqasha keen goormaa walqashi lasoo doonanaya haddii la yidhaahdo inanna xaggaasuu isaga dhaqaaqaya markuu u sahlan yahay haddaan hadal kale kasoo neefneefin wuu iska dhaqaaqaya wuu iska tegaya suuqoodii waa qaali hablahaas waa xaami weeye nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa man kaana lahu 3 banaatin yuwiihina wayakfiihina wayarxamuhuna faqad wajabat lahu aljanna albatta qofka 3 hablood leh waa kuwa aynu soo sheegnay uu dhalay maalan soo dhaweynaya u samafalaya u naxariisanaya shuruudaha ku xidhan ma hiifayo ma haaraamayo ma karaahaysanaya ajrigii wuu iska burinaya bakhaylku 2 jeer buu khasaaraa haddii isagoo u shaqaynayo dadaalayo hoosta ka inkaarsan yahay oo leey kuwana laygu saliday abaar bay qabaa inanba kuma jiro adduunyadiina lacagti ka baxday aakhirana ajar kuma helin marka maxaa loo baahan yahay shuruudu ku xidhay nebigu wuu soo dhaweynaya wuu samafalaya wuu jeceliya wuu naxariisanaya wakaa wuxuu gelayaa uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam jannaduu gelaya sawjkii waa arrintaa dumarow ka fiirsada geedkii dumar la odhan jiraa warkana u yaalla waxa weeye ninkii kiisayga la odhan jiray kiisayga la odhan jiray faraa lagu taagi jiray ee lagu fiiqi jiray bal haddaa laga fiirsada warkiisa ruux dumarahoo saxaabiyadabaa nebi maxamed u timi maalin maalmaha ka mid ah ee nebiguna asxaabta dhexdoodu ka kalluumaysanaya ama aragtidiisu aada bay ugu dheeraydoo wuxuu ahaa qof ilaahay uu siiyey caqli badnaan iyo fariidnimo iyo cilmi iyo waxyi wax walba qofba halka ku munaasibsan buu kala hadlaya markaa wuxuu ku yihi adaatu zawjin anti miyaad xaas tahay oo nin miyaad leedahay waxay tidhi haa markaa rasuulku wuxuu yihi fakayfa anti lahu sideebaad isku tihiin ama sidaad ku tahay waxay tidhi maa aaluuhu ilaa maa cajaztu canh waxaan kari waayo waxba kama hakrano waan u dadaala odaygayga markaa nebigu wuxuu yihi fandurii ayna anti minhu faaxsinii fainahu jannatuki aw naaruki bal hadda ka fiirsa arrintiisa oo u samafal jannadaanana uu noqon karaa naartaadana uu noqon karaa marka haddaad u samafashaad hagaajiso xaquu leeyahayna siiso ixsaan ugu darto jannaad ku helaysa haddii kalena naar saasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam gabadhana haddii loo samafalo saas oo kalean janno loogu helaya waxaa 15aadoo wadooyinka loo mara jannada ka mida xusnu lkhuluq akhlaaqda wanaagsan walaa adraaka maa xusnu lkhuluq
nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiid sugan oo uu warinayo axmed ibnu xambal tirmidi ibnu maajah akharu maa yudkilu nnaasa aljanna maxaa ugu badan ee dadka janno geliya asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim saa horeba aynu usoo sheegnay hankoodaa weynaa su-aalaha ay nebiga weydiinayaan muu ku saabsanayn maxaa la cunaayo bal ka waran haddii aan geedkaa cuno geedkeebaa caafimaadkayga u wanaagsaniyo geedkeebaa dhalmada u fiicaniyo cawtalgasiirka lacagta lagu helaa waa kee iyo waxaasay nebiga dadka qaarkood hadday la kulmaan maanta weydiin lahaayeen iyo meelaha ugu fiicane shaqada loo maraya iyo waxaas asxaabtu waxay weydiinayaan jannada maxaa ugu badan ee lagu heli karaa xikmadii ilaahay uu siiyey buu u dhiiba wuxuu uhi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq ilaahay oo laga cabsadiyo akhlaaq wanaagsan eg waa diin iyo dabeecad wanaagsan qofku hadduu labadaa leeya wuu macaan yahay ma laga caajisayo dabeecad wanaagsan baa ilaahay ku abuuray isaguna wuu ku dadaalaya inuu dabeecad fiican naftiisa u sameeyo dad kalena uu la saaxiibo iyo diin labadaa hadduu leeyahay shaqadaa loo diranayaa waa lala saaxiibayaa waa lala degayaa dumarkaa loo guurinayaa suuqiisu waa shidan yahay waaya taasuu saasuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dadaalo wey mar kale nebiga waxaa la weydiiyey waxa ugu badan ee dadka naarta geliya waa taa hore cagsigeed wuxuu ihi alfamu walfarj alfamu walfarju subxaana allah waa afka iyo ibta qofkoo labadaa ka waasha afkan sare iyo afka hoose labadaasuu ka waasha oo xaaraan ayaa ka soconaysa ama uu ku wadaya naartuu gelayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha waa qodobka 16aad ee ka mida waxyaabaha lagu galo jannada ilaahay ha inoo aqbale ee waxaa ka mida markhaatiga ay dadka wanaagsani u markhaati kacayaan qofka ama ifka ha joogo ama ha dhinto dadka saalixiinta ee wanaagsan ayaa qofkan uga markhaati kacaya wanaagiisi hebel nin wanaagsan buu ahaa heblaayo qof wanaagsan ba ahay saasaa la yidhaha qofka fiican marka uu dhinto waa kii nebiga jinaasad lala soo maray markaasay dadku eedeeyeen way ammaaneen taa hore markaasuu nebigu uhi way waajibtay haddana mid kalea lala soo maro way eedeeyeen markaasuu uhi wajabat way waajibtay markii la weydiiyey tafsiirka ereyadaana wuxuu ku fasiray ka hore wanaag baa ku sheegteenoo jannaa u waajibtay ka labaadna naar baa ku eedayseenoo macnaa waxaad tilmaanteen inuu eedaysan yahay oo dembiilo yaho dhibaatooyin lahaayoo naar baa u waajibtay wuxuu kusoo gebagabay rasuulku antum shuhadaau llahi bacdukum calaa bacd markhaatiyaal ilaahay baati oo dhulka jooga laakiin ka waran dadka markhaatigooda la dhagaysanaya waa ayo ma faasiqiinta ma gaalada ilaa haddii imika dadka gaalada ama dadka faasiqiinta la weydiiyey markhaati ka ugu shar badan bay u markhaati kacayaan inuu wanaagsanaa qolo waliba shimbirkiisu ku ammaanaya dadka markhaatigooda lagu xisaabtamaya waa antum nebigu wuxuu leeyay idinka waa ayo waa asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaynu intaa aragnay sababihii lagu gelayo jannada dee waxaa mudan inaynu guntanno intood tirsatood qodobaysato inaad mid walba isku dayda inaad ku dadaasho waxaynu usoo gudbi lahayn inaynu dhex tagno allahayna dhex geeyo jannada ilaahay subxaana wa tacaala horeynu ruqaansanay markaa jannadii baynu gaadhnay waynu daadaawanaynaa insha allah allah inoo aqbalo binaau dunya wa binaau laakhira waxaan isbarbar dhigaynaa bal halkan waxa yaale lagu wareeray ee loo waashay ee ilaahay iyo aakhiriyo diinba loo sheegay ee nicmada adduunyada lagu sheegay marka dhismaha adduunyada iyo dhismaha jannada ayaynu sheegaynaa dhismaha adduunyada waynu naqaana waa inagaa dhex fadhina arkayna laakiin dhismaha jannada nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay labinatun min fida wa labinatun min dahab xabad labani waa dahab xabad labanina waa lacag iyo dahab macdantii saafiga ahayd halkay taale waad garanaysaa iyo qiimahay adduunka ku lahayd macdantaas qaaliga ah ayaa xabad labanoo dahaba iyo xabad labanahoo lacaga ayaa isa saaranba wa milaaduha almisku ladhar mifsalkan u dhexdhexeeya ee loo dhexdhexaysiiyo labanka isu hayaana waxa weeyaan cadarka bahalkaa la yidhaahdo miskiga ee aadka u udgoon ee qiimaha badan halkii dhoobada iyo sibirhka kaasaa ku jira waxasbaauha lulu walyaaquutu wa turbatuha zacfaraan quruuruxa jannada iyo shayga ciiddee yaalaana waa lulu iyo jawhar
ayaa quruurux iyo ciid uga dhigan ciiddiina waa sacfaraan wamasaakina dayibata fi jannaati cadn jannadu waxa ay leedahay khiyaam halka dadku maanta bangalooyin ay ku barwaaqaystaan isleeyin waa ku badhaadhaysaan ay samaystaan bangalooyinka jannada ilaahay awliyadiisa ku casuumay buu nabigu inoo sharxaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay qofka muuminka ah jannada wuxuu ku leeyahay la khayma min lu'lu waaxidatun mujawaf duulaha 60 milan lilmu'min dherarkeedu wuxuu leeyahay 60 mayl mise magaalay ka kooban yihiin 60 mayl waa loo safraa oo safar baa loo galaa guri keliya intaa leeg meesha sida loogu bogsaday loogu barwaaqaystay fiiha ahluuna yatuufu calayhim almu'min falaa yaraa bacduhum bacdan ninkii mu'minka ah halkaa xaasas baa u jooga dumarku iyay ka xanaaqin oo hinaasuhu yuu ilaa aakhire soconin fiiha ahluuna yatuufu calayhim almu'min dumar baa halkaa u jooga ninkii mu'minka ahaa oo uu la kulmayo laakiin nasiib wanaag laa yaraa bacduhum bacdan dumarkaasi isma arkayaan oo isma ogan mid waliba waxay u taqaanaa ninkan inuu keligeed qabo dadkan waxa ka waalinaya xayraanka iyo hinaasaha dumarka ugu wacnaa tii kale ama arkaysa ama uu ku maqan yahay ama wuxuu sii sidaa laakiin haddii keligii uuna iyadu isu og tahay arkayso tan kaleba aanay ogeyn waqtiga uu siinayaana ku filan yahay maxay uga baahan tahay tii kale ma ku hinaasayso taasuu nabigu ku sharxay calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku ka warramayaa aan idhaahno horta aayaddii waxay ka warramaysaa webiyada jannada webiyada adduunka waa la yaqaana maray guraan iyo maray dhoobo leeyiin iyo maray bakteriya balaaya ku dhalatay iyo maray sunoobaan laakiin qur-aanka ilaahay waxa uu ku xusay subxaana wixii la cabayay adduunkan koobabkan yaryarka ah laynoo darayay ayaaba webiyaalaba waaba webiyaal dhiishii faqriga iyo duruuftii iyo wixii o dhan baa la iska dhigay فيها أنهار من ماء وأنهار وحول إلهي ما وحول الله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات وببياء وبعناء وبخمرية وبملبة وأنهار ولبا أنهار وبيان وملب يعانو يبيو iyo khamri wabiyaal qulqulaya cajiiba weey wadaleed kalaysa dadkaasi inay horay ka dhargeen laakiin waxa nicmada la yiraahdo anfac iyo arag labadaba inay kugu deeqdo oo nin baa wuxuu wixii aragiisu ideeqaaba anfaciisu ideeqaa markaan shayga eega badnaantiisa aan arko markaasna horta iska sii dhargaabuul imika wuxuu haduu yar iyo wala isku qabsadaa dadka qof walibana uu warwaraa wuxuu siraayuu ka dhamaan laakiin shaygu marka aad aragtay inuu farabadan iyo barwaaqadiisu badan tahay ishu ka sii dhargaya qofka nisaa dunya wa nisaa janna dumarka jannada iyo dumarka adduunyada dumarka adduunyada dawaynu naqaana iyadoo aan waxba laga sheegayn haddana waa bani aadam nuqsaan leh sida ragguba nuqsaan u leeyahay waxyaabo kala duwan oo nuqsaantaas laakiin ilaahay wuxuu xusayaa marka uu dumarkan adduunyada laftigooda ka kaxeeyo adduunka inaanay kuwiiba ahayn ay isbedelayaan إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين تبانوها بيبا إلى هبلاي دي معها هدي مذوبان شرتي هدي قابان شرتي هدي وحيابا كالورنا ليلا يلان شرتي تي معها حور عين تأيا كرو يجيس الله ينقيه تمر كينا نكو الله كدقو تيبو هبين بان كسا ميبا إلى هاي تمر كي الدنيا دا مركاسان كدقو كوا ودا دا يروها بلا ودا راك جعل oo iswada la eg baa ka dhigay baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka la wuxuu tilmaamay azwaajul mudahhara inay yihiin dumar mahara badan oo wixii adduunyada ay iska nadiifin jirtay kharashka badan baa sidii la isu nadiifin lahaa meesha naga baxa mid la ismariyay iyo mid la isku maydhay iyo mid la isku shubay iyo mid la isku udgoonay lacagteeni halkaas ku lamaatay azwaajul mudahhara dumar la nadiifiyay ayaa halka jooga ayaa Ilaahay subhanahu qaasiraatu darfi markale ودمر الشهود أي قابن تهاجو مال إلهي وديده هي مال حرام هي مدة بقى نيجين حور المقصورات في الخيام ودمر على عضا كوب أورسن ماشى الله إلى هذا بنجلوين كه وحسيا بدن النبي مركو سفيني عليه الصلاة والسلام دمر كهنك وين كوا سهك سنة يعني وحول ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما
walamalaatu riixa haddii dumarkii ahlu jannaha mid ka midihi mabay soo bixinba way saasunbay usoo eegtay caalamkeennan unbay saa usoo eegtay waxay buuxin lahayd cirkiiyo dhulka inta ka dhaxaysa ayay iftiimin lahayd iftiin bay buuxin lahayd udgoonna way buuxin lahayd xurucintaa mid ka mida marada saaran madaxeedaasi khayrun min addunyaa wamaa fiiha adduunyada waxa lagu hayo oo dhan ee barwaaqo ah ee kala duwan masarkeedaasaa ka fiican meeshaynu ku xiiqayno dumarku halkay ku xiiqayaan ee kiishadan yar lagu adkaysanayo dumarow ka fiirsada barwaaqa halkaasay taalla masarkaagii iyo araggaagii labadiiba tilmaantaasuu nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam markay saa usoo eegtay adduunkii matoosh baa lagu qabtay u wada iftiimay marka la eego udugeeda ceriyo dhul inta ka dhaxaysa ayaa udgoon masarkeediina waa qaaliyo halkaas u gaadhsiisan yahay mucaamalada ragga iyo dumarku halkaa ay wada mucaamaloonayaan way ka duwan tahay tii adduunkii ama howlaha badnayd ama lagu xiiqayay ama dhalmadu daba socotay waxyaaba badan baa jiray nebigu wuxuu leeyahy yucطى axaduhum quwata 100 rajuli fi اlmadcami wاlmashrabi wاshahwati wاljimaac mid iyaga ka mida waxaa la siinayaa 100 nin awoodood xagga cunada iyo cabidda iyo galmada 100 nin ayaa uu la awoodayay buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam isbeddel baa meesha ka dhacay iyo dib u habeyn la yaab badan mulkiga adduunyada iyo mulkiga jannada ama lahaanshaha qofku waxaan uu iska leeyahay adduunka noocuyo waynu naqaanaa iyo jannada marka la isu eego labadaas siday farqiga u dhaxeeya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii kelmadihii xikmadda ahaa ninkii shaacirkaa kaga daba dayanaya lahaa allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira fakfir lilansaari waalmuhaajira ilaahay u nololi waa nolosha jannada ee asxaabtayda u dembi dhaaf nolol adduunyada la barbar dhigi kara taa jannada ma jirto wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam mawdicu sawdi axadikum min aljannati khayru min addunya wamaa fiiha mid idinka idinka midii ushiisa meeluu sidaa jannada u dhigo waxay ka fiicantahay wax alla waxa nicmo adduunka lagu hayo o dhan ee maanta loo waalan yahay la isku dilayo ee la isku haysto usha meesha intaa in leego jannada la dhigo ayaa ka khayr badan buu nebigu ilaahay baa wuxuu subxaanaه wa tacaala waidaa ra'ayta hama ra'ayta naciima wamulka kabiira haddii imika lagu fasixi lahaad halkaa jannada saa u eegi lahayd qof iyo lala hadlayaa waxaad arki lahayd nicmo aada u fara badan iyo lahaansho aada u weyn buu ilahay subxaana wa tacaala isagoo ina cishqi gelinaya shayga la yidhaahdo jannada qur-aanku aad baa wuxuu u sharxaa sidaa sharaabka usoo sharxay waxa lagu cunayo kala duduwan haddii ay tahay shimbirihii hilibka wanaagsanaa iyo khudradda oo kala nooc nooca qur-aanku aad buu u tilmaamaa waanay kala duwan yihiin runtii cunadan adduunyada aynu cunayno iyo cunada aakhiro cunadan adduunka marka u horeysaba sidii lagu soo saari lahaabaaba ayaaba xadaafiir iyo xayraan inagala kulmaya bal inta tacab loo maraya beerihii la berayay kharashka lagu bixinayay muddada la sugayo marbay ba-aysaa marba duruuf badan baa inaga haysata sidii loo soo saari lahaa marka la karinayana dee la diyaarinayana waa adiga arkay marka la cunayana waa adiga arka waabaad ku rafaadaysaa saacad baad calaashanaysaa qaar baad ku merganaysaa hawl badan baa inaga haysata markay caloosha gashana in yar kadib baad onaysaa xaggee suuligu ahaa mama hayn karaysidba waa wixii aada u hamuumaysay ad u dhareerinaysay haddana halkan markay ku hilmaan ma hayn karaysid waa inaad isdhaafiso haddii ay kugu xidhmaanna khalaas ilaah un baa kaa soo dayn karaa cid kuu gurmanaysaa ma jirto sheekh mufasiriinta ka mida baa wuxuu sidaa u sharxayaa falyandur ilinsaanu ilaa طacaami annaa sababna almaaa saban uma shaqaqna alarda shaqa falyandur ilinsaanu ilaa طacaamihi qofku ha eega raashinkiisa wuxuu kasoo bilaabayaa markii la beerayay ilaa marxaladaha lasoo maraynay ilaa marka uu noqonayo qashinkii uu geynayay qofku xamaamka intaasuu isku xidhaya baraashinkii adduunku hawshuu yeeshay iyo wuxuu ku dambeeyey iyo markii hore wuxuu ahaa iyo xaaladiisa laakiin raashinka ahlu jannuhu kaa wuu ka duwan yahay waa shay aan lahayn dhibkaas ma leh intaa oo aynu soo sheegnay midna ma leh neerfaha ku shaqaynaya waa neerfihii rafaadka maaha waa neerfihii macaasiga iyo raaxada kaasaa ku shaqaynaya
sidoo kale xamaamkiina ma laha siduu nabigu xusayay calayhi salaatu wasalaam xadiidta dambe ku arki doono waa dhidid iyo daaco dhididkiina waa cadar daacadiina waa udgoon marka halkaasuu ku hadhay wixii la odhan jiray inuu qofkii xamaam la tago waxaa qur-aanku uu ka warramay jannadu inay leedahay shaqaale dee qofkii ma raaxaysan karaya hadduu kacakufayo oo kolba uu soo maaragtay waxyaabahaynu aada u dareennay bay ka mid tahay weliba dadka waayeelkii markaa halkan timaadeen inkastoo lalahaa bal hadda wadamada gaalada ay gaadhsiiya iyo meelaha lagu ladan yahay dhibka ugu weyne qabtaan mataqaana qofka xaggii ka yimi uu dareemayo waa shaqaalo la-aanta bal oday iyo islaan sidaa suxullada ugu soconayo shaqaysanaya oo kitchenkii uu gelayo qofkiio intaa wuxuu isku dhalaalinaya halka inaga dadka waayeelka ah iyo qofka loo adeegi jiray ee loo shaqaynayey runtii tacabkaa uu ka nasanayay qofka markaa qofku kolku raaxadiisa qaadanayaa waxa weeye dad adeegayaalahoo shaqada u jajabani markay hareerihiisa boodayaan adiga arko hodheelada maxaa lagu xayeysiiyaa hodheelkaasi cunno macaan buu hayaa waxaana jooga shaqaalo jajaban bay ka odhanayaan kuwa xayeysiinaya shaqaalo jaban shaqaalo u jajaban shaqada ayaa jooga markaa waxaa la dareemayaa dee raaxadii inay qeyb weyn ka qaadanayaan shaqaalihii sidaasay tahay oo qur-aanka kariimkaa ilaahay marka uu ka warramayo shaqaalaha waxa uu leeyahy wayatuufu calayhim wildaanu mukhalladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manhuura waxaa dushooda sidaa u wareegaya oo aan mar qura ka nasanayninee ishooda iyo afkooda iyo gacantooda wixii ay dalbayaan sidaa u eegaya shaqaale markaad sidaa inama la waariyeyba horta ilaahay waxa lagu waariyey inay yaryaraadaan waa wildaan inama da-yaroo shaqaynaya oo aan intaa ka weyneyn qofku hadduu weynaado maogtay ma diran karayside laba waaweyn isma dirtaan haddii iminka qofku ku ag joogo oo uu ku leegyahay ma odhan karaysi hebeloo alaabtaa idhi waxay kuu kalifaysaa intood kacdo inaad soo qaadato laakiin ciyaalku iyagaaba ka helaba in la diraba way isku qabsanayaan haddaad iminka laba ciyaala tiraa ii keen anna ii dir buu kuleeyahy marka waxay ku waarayaan inay yaraadaan intaa ma dhaafayaan oo ilaahay baa u diyaariyey iyaga laftigooda shaqaalaha markaad eegto waxaad u malaynaysaa buu ilahay yidhi jawhar sidaa jannada loogu daadiyo way wada dhalaalayaan mar waayo hadduu dhalaalay kii loo shaqaynayay loo shaqeeyey maxaad u malaysay kii shaqaynayay hadduu saa u dhalaalayo loo shaqeeyihii maxaad u malaysay wax cajiiba wey qur-aanka kariimkaa ilaahay waxa uu ku xusay jannadu inuu khamri yaallo laakiin khamrigii adduunyada aanu ahayn laa fiiha qawlun walaa hum canha yunzafuun ma laha alcoolkii dadka sakhraaminayay iyo wareerkii lagu sakhraamayay midne waa sharaab macaan oo ladiida baydaa ladatin lishaaribiin waa khamri cad oo u macaan badan dadka cabaya baa ilahay uri subxaanahu wa tacaala waaya ahluljannuhu badhaadho iyo barwaaqe waa u dhammaaday waxaase la isweydiiyaa culimadu isweydiinayaan ma seexdaan ahlujannuhu meeshii hurda ma jirtaa mayaday leeyihin hurda horta maxaa tahay maxaa loo seexdaa maxaase laga seexdaa dee waxaa laga seexdaa rafaad iyo buusbuuski iyo balaayadii shaqadee kusoo martay qofku markan uu leeyahay waan seexanayaa dee wuu daalan yahi oo tacab baa haysta ama uu xanuunsado waa diifaysan yihi dee qofku waxaba ma qababa meeshii raaxo iyo hawl iyo daal iyo tacab midna ma yaalo sidaa daraaddeed ma seexanayaan ahlujannuhu seexashadeennu haddii aynu seexanana waxaynu aragnaa marar badan in dhibbay naga soo gaadho oo riyo xun oo raaxada kaa qaada aada aragto saa darteed baa nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxu uhi xalayta waxaan ku riyooday iyadoo qoorta layga jaray madaxaygiina uu halkaa cararay kadibna waan soo qabsaday markaasaan isku rakibay markaa nebigu uu la yaabay wuxu uhi idaa laciba shaydaanu biaxadikum fii manaamihi falaa yuxadithana bihi nnaas war shaydaankaa kugu ciyaara midkiin markuu shaydaanku ku ciyaaro dadka waxba yuu u sheegina iska aamuso marka hurdadii walaaqaa iyo wareerkaa lahayd iyo ciyaarta shaydaanka meesha way ka baxday jawiga jannada manaakhu dunya waa manaakhu ljanna jawiga adduunyada dan waynu naqaanaayo waa idinkaa barafka la il daran in yar kadibna bacad baad u baxaysaa marna waad soo kogaysaa oo farahaagu waxay la gubanayaan qabow daraadii marna waxay la gubanayaan kulayl jawiga jannada waa mid ilaahay markuu ka warramayo uhi muttaki'iina fiiha calaa laraa'ik laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira
waxay ku raaxaysanayaan sariira dushood mana arkayaan kulayl iyo qabow. ibnu cabaas radia allahu canhu markuu fasirayo waxa uu leeyahy waxaa la odhan karaa jannadu in ay waktigeedu noqon karo waktigan qoraxdu ay soo baxayso intuu waagu baryo soomaadale qoraxdiibaa u dhow inay soo baxdo marka dhulkiina aada buu wada iftiimaya iftiinkii wuu dhan yahay laakiin kulaylna ma jiro habeenna ma jiro kulaylna ma jiro waktigaasoo kale lagu tilmaami karaa. suuqyada jannada oo ka duwan runtii suuqan maanta aynu ka dukaamaysano weligiiba ha lagu faano halkaasi moolalkaasuu leeya suuq wanaagsan buu leeya suuqa maxaa loogu tagaa mushkilada suuqu waxaa runtii shaydaanku calankiisa ka taagay marka uu qofku galo dhib badan buu kala kulmaa iyo daal iyo diiqad iyo iyada oo lagaba yaabo in wixii uu sitay laga qaato iyo dhib badan baa kasoo gaadha. laakiin suuqyada jannada markuu nebigu ka warramaya wuxuu uhi suuq baa jannada ku yaala maalin kasta oo jumco ah way isugu imanayaan ahlu jannuhu kadibna waxaa sidaa usoo faafaysa neecow riixu shimaal dabayl aada iyo aada cadar u wadata markaasay wejigooda iyo dharkooda cadar kusii daynaysa ahlu jannaha markaasaa dhalaal iyo udgoon ayaa u kordhaya sidan arooska had iyo jeer marka meelaha loo soo tiirtiirinayo loo soo giijiyo iyagiioo suuqa ka yimid oo qurux badan markay ahlu jannihii yimaadaan ay xaasaskoodii u yimaadaan xururciinta ahaa ayay xaasaskii odhanayaan quruxdiinu badana ahlu jannihina waxay leeyihin dee idinkaaba naga sii daran sidaasaa la isu caashaqaya la isula dhacayaa. sidaa daraaddeed haddaba laa tu'thir ilfani cala albaaqi waxaynu kusoo gebagabayneynaa waxaa halkan yaalle sidaa u dhammaanayaynu aragnay ee taajirkii ka cawday ee faqiirkii ka cawday ee kii waayeyna u waalan yahay kii helayna ku waashay baasha adduunyadu waaba labadaasu kii waayey iyadiibuu u waalan yaho kaasuu sii eegaya kii helayna ku ka sarreeyuu sii eegaya waa la wada wareeray. haddaba marka taa faanigee tegaysa laa tu'thirha cala albaaqi taasoo hadhaysa halkaa nicmadaa badane ay taallo iyaynaan ka horraysiinin. alla wuxu uhi mataacu dunyaa qaliil waalaakhiratu khayru liman ittaqaa alaabta adduunyadu way yarti aakhira ayaa jannadaa u khayr badan qofka ilaahay ka cabsada subxaanahu watacaala. ahlujanno markay jannada yimaadaan ilaahay ula hadlaya wuxuu le maxaa idin daran maxaan idin siiyaa waxay le ilaah wax walba waadna siisay kanaadna siisay waxba uma baahni wuxuu rabbi leeyahy subxaanahu watacaala maanta kadib wax cadho la yidhaha ka warwarin raalli noqoshahaygii baan idin siiyey cadhadayda ha ka warwarin cadhadii adduunka ay addoomuhu aada uga cabsan jireen mar labaad buu idin ilaahay leeyahy maxaan idin siiyaa markaasay le ilaahay oo wejiyadeeyi baa cadaysay jannadiibaad ayaad nagelisay naar baad naga badbaadisay way kala badbateenoo way dhargeen shaacuu isaga qaadaya ilaahay subxaana watacaala. adduunyada awliyada ilaahay kumay arkaynina jannaday ku arkayaana markaasuu istusaya liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada markay ilaahay arkaana isha saaraan allahuma ijcalnaa min haaulaai ayay aada u farxayaan. jannada nicmadeediiba aragtida ilaahaybaa uga sii qiimo badnaanaysa waxa ay kusoo ururaysa arrintoodu markaa inay mahad badiyaan alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaahay baa mahadle nicmada nagu soo hagay haddaanu ilaahay nagu soo hagi lahayn kuma anaan soo hanuuneen. xamdigaa iyo tasbiixdaa sida neefsashadoo kale u wadayaanen dhib ku lahayn ayay markaa wadayaan halkaasaa farxaddiina uga sii soconaysa weligeedna aanay ka dhammaanayn lagama guurayo lagama gaboobayo lagama xanuunsanayo wax isbedeli ma jiro barwaaqadaasaa lagu waaraya iyaguna aagberdelasho ay ka doonayaan ma jiro. waxa halkaa ku dambeeye horeeyaana ee ilaahay awliyadiisa iyo addoomihiisa u diyaariyu ku casuumayna waa kaa kii horeynu soo aragnayna waa inagii soo sheegnee naaraha ahaa qur-aanka markuu ilaahay sheegaya labadaasu isku barbar sheegaa qofkii miyir qabaa isma dhaafsanaye oo jannada naarta kaadhkeeda ma qaadanayo ikhtiyaarka isagaa maanta le qofku laakiin jannadaasuu kaadhkeeda qaadanaya kuwa allah inaga dhigo. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.